This is a story that so many people have followed. Carol and Reggie Sumner, they were reported missing by family, and days later we learned they had been kidnapped, robbed, and then buried alive. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha ku xidhan janalkeena qubtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub julaay 2005 waxaa si kadiisa loo waayay laba lamaane oo aad isu jeclaa waxayna joogeen Jacksonville gobolka Florida laakiin isla markiiba booliska oo sameeyay dhaqdhaqaaq fara badan ayaa waxa uu ku guuleystay in uu soo helo labadii lamaane isagoo adeegsanaya kaarkii bangigooda oo la adeegsanayay iyo waliba iyagii ahaa dadkii isticmaalayay kaarkaas sidoo kalena waxaa la soo helay labadii lamaane laakiin nasiib darro iyagoo meyd ah haddaba daawadayaal haddii aad isweydiinaysid sidaa u dhinteen iyo weliba qisadooda dhammaystiran kaale aan kaaga warrama wixii dhacay 2005 July iyo labada lamaane oo lagu kala magacaabi jiray Carol iyo Reggie sidaa u dhinteen iyo dadkii galaaftay meesha ay ku dambeeyeen iyo masiirkoodii sida uu noqday daawasho wacan muuqaalku dhammaystiran laakiin intaana muuqaalka ugu gudagelin fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar waad ku mahadsantahay ha iloobin waa muhiim Carol iyo Reggie waxay asxaab ahaayeen jacayl uu ka dhexeeyay ilaa waagii ay isla baran jireen dugsiga sare inta ayna u kala bixin mid kastana uuna raacan danihiisa markii uu ka baxay jaamacadda Carol iyada oo guursatay xagga Reggie uu ku biiray ciidamada badda Mareykanka sanado badan oo ay kala maqnaayeen laakiin wali uu kasii dhandhamayay jacaylkii ka dhexeeyay xilligii ay wada baranayeen madrasadda waxa ay kulmeen iyaga oo jira 61 sano gaana waxay kasii bilowdeen jacaylkii ka qabyada ahaa markaasina waxa ay ahayd 2000 mar ay ku soo wada xiriireen taleefanka gacanta 2001 waxaa dhacay arooskeedii labada lamaane waxayna ka soo guureen South Carolina iyagoona u soo guuray Jacksonville iyadoo xagga Reggie uu ka iibsaday guri waxayna bilaabeen inay ku wada noolaadaan xaggaas iyagoo jira cumriga 61 sano laakiin 8 bishii 7 2015 waxaa albaabkooda maalin ku soo garaacay shakhsi laakiin garaacidaasi waxay ahayd tii masiirkooda iyo noloshooda dhan bedeli lahayd labadii lamaane isla markiiba waxay la kulmeen afduub waxaana lala tegay labadii lamaane laakiin gabadhoodii ayaa la soo hadashay booliska markay taariikhdu ahayd 10 bishii 7 2015 boolisku waxay heleen qabri lagu duugay labadii lamaane oo ku yaala Georgia baaritaan kadib waxaa la ogaaday in la aasay iyagoo nool ayna ku dhex dhinteen godka gudihiisa hawayarida iyo weliba ciidii lagu soo rogay darteed iyaguna ay ahaayeen laakiin su'aashu waxa ay tahay yaa isku dayay in uu dilo labadan shakhsi ee aadka u waaweyn kana rabay daragaara boolisku baaritaan uu ku sameeyay gurigoodii waxa uu ogaaday inay guriga ka maqan yihiin wax walba oo qaali ahaa waxaana ku jiray waxaas kaarkoogii bangiga laakiin raacay ku sameeyeen kaarkaas waxay ogaadeen in la isticmaalayo waxayna soo raadeen 3 qof oo ku sugnaa hotel ku yaalay Charleston ee South Carolina saddexdaa shakhsina waxay kala ahaayeen Michael Jackson iyo Tiffany Cole iyo weliba labada shakhsi oo jiray 23 sano iyo wiilka kale oo lagu magacaabo Alan White kaasoo jiray xilligaas 18 sano muddo kadibna waxa gacanta lagu soo dhigay shakhsi afraad oo looga shakiyay dambiga oo lagu magacaabo Brock Nixon oo jiray xilligaas 18 sano isaguna baaritaanada boolisku waxay ogaadeen inuu shaygan ama dilkani ahaa mid soo qorshaysnaa muddo badan haddaba qorshahaasi maxaa uu yahay Tiffany waxay ahayd shakhsi garanaysa labada lamaane ilaa waagii joogi jireen South Carolina ayna ka soo guurin waxayna ka soo iibiyeen gaarigoodii iyada inta ayna soo guurin ka hor intaa kadibna Jacksonville ayay u soo safartay gabadha lagu magacaabo Tiffany si ay ula kulanto qaar ka mid ah asxaabteeda una bixiso lacag ku dhinayd gaarigii laga iibiyay markaasna waxa uu xiriir kala dhaxeeyay Michael Jackson muddadii Tiffany joogtay Jacksonville ayaa waxa u saamaxay qoyskii labada lamaane ahaa inay joogaan gurigooda maadaama ay xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyay markii hore markaasna waxaa go'aansadeen labadan lamaane ee yaryar inay dhacaan labada lamaane ee waaweyn maadaama ay yihiin waxna aadna u kala garanayn iyagoona lacag haystay laakiin waxay waxadeen kibir iyo isla weyni iyo inay xadi karaan dadkan waaweyn ee masaakiinta arrintaasna waxay kala tashadeen saaxiibkood Alan White waxa uu keenay saaxiibkiisii kale saaxiibkii Bros baaritaanka booliska oo wali sii socda waxay ogaadeen inay ka wada tashadeen afarta shakhsi arrintaas soona iibsadeen plaster iyo waxyaabo wax lagu daboolo iyo waliba wax faraha la gashado Tiffany waxa ay soo kareysatay gaari kale isla 8 bishii 7 2005 Michael iyo Tiffany waxa ay joogeen guriga dibadiisa maadaama iyagu is garanayaan labada lamaane xagga guriga gudihiisa ay galeen
Alan White iyo saaxiibkii Prose waxayna ku galeen iyagoo raba kuna yidhi waxaan rabnaa inaan la hadalno xaafadeedii arrin degdeg ah. In isla markii gurigiisa u soo galeen waxa ay ka saareen xadhiggii taleefanka iyagoona ka gooyay khadkii. Intaa kadibna waxay ka qabteen qoortii labadii lamaane waxayna kaxeeyeen labadii lamaane iyagoo ku qasbay inay fulaan gaadhigoogii u gaarka ahaa. Waxayna ka urursadeen dhammaan guriga wixii qaali ahaa ee yaalay, hadday noqoto dahab iyo wax walba oo islahaayeen waa wax qaali ah. Waxayna kaxeeyeen labadii lamaane iyagoona geeyey meel ka baxsan magaalada. Fanny iyo Michaelna waxay u soo noqdeen markii dambe si ay u xadaan aalad lagula baxo lacagaha. Sidaa waxay ahaataba iyaguna waxay la baxayeen mar walba lacago iyagoo la sheegay lacagta ay la baxeen inay gaadhaysay $5,000. Waxayna sameeyeen wax ka daran iyagoo Tiffany iyo Michael la soo hadlay booliska una sheegay in ay yihiin Carol iyo Reggie oo ah lamaanihii ay dileen. How you doing? My name is Reggie Sumner. I'm out of town with my wife right now. Her sister passed away. A friend of ours that lives in the neighborhood called this morning and said that the garage was open and that the Lincoln was missing. We just moved actually to there not long ago from South Carolina. Do you have anybody that we can contact to help us make sure that everything's at the house that should be there? No, sir. My family lives in another state. Intaa kadibna boolisku waxay heleen gaadhigii ay lahaayeen labadii lamaane ee la dilay, waxayna ka dhex heleen fingerprinti uu leeyahay Michael. Sidoo kalena raadraac lagu sameeyey dhaqaaqii ay ku sameynayeen kaarkii bangi ay lahaayeen labadii lamaane ayaa waxaa la ogaaday inay joogaan hotel ku yaala Charleston. Muddo kadibna waxaa gacanta lagu soo dhigay Prose isagoo yimid North Carolina isagoona wakhtigaa joogay xaflad kuna faanayay in uu dilay shakhsi isagoo nool. Xilligaana jeebka wuxuu ku haystay dawooyin. Su'aasha la yaab kale ayaa waxay tahay sidee wiil dhalinyaro ah oo jira 18 sano u galay dembi intaa leeg. Xagga kalena Tiffany maxaa ku dhacay? Muuqaalka sii daawo. Tiffany oo runtii ahayd caqliga ka dambeeyay in la dhibaateeyo lamaanayaashaas masaakiinta ahayd ayaa Prose fadhigii maxkamadda ahayd ee lala sameeyey waxa uu sheegay inuu Michael ahaa caqliga isagu ka dambeeyay dhammaan dhibaatooyinkii loo geystay lamaanahaas. Michaelna wuxuu iska fogeeyay eedeyntaas isagoo sheegay inay Tiffany tahay ta wax walba ka dambeysay. Tiffanyna waxay tiri waxa anigu war uma hayn in la dilayna uma malinin ee waxaan moodayay maadaama aniga lamaanayaashu ay garanayaan in waxoogaa yar lacagna looga soo qaadayo kadibna ay soo baxayaan. Oktoobar 2007 Tiffany waxaa lagu xukumay 2 dambi oo ah inay dishay, afduubatay, dhacdayna masaakiin da' weyn jiray. Waxaana lagu xukumay xukun ah cimriga ha ku furto. Xagga kalena Michael iyo Alan sidoo kale waxaa lagu xukumay cimriga ha ku furto. Dhanka kalena Prose waxaa lagu xukumay xukun dhan 45 sano oo xabsi ah. June 2017 ayaa Tiffany waxaa laga tuuray xukunkii cimriga ha ku furta ahaa iyadoona loo furay fadhi kale maadaama markaa la sheegay in garsoorayaashii ayna isku wada raacin xukunka abadiga ah. Haddana waxay ku xidhan tahay gobolka Florida iyadoona weli sugaysa fadhi kale si ay ula yeelato maxkamadda. Waa wax la yaab leh runtii. Waxay dhibaataysay lamaanayaal masaakiin ah oo wax ay galabsadeen ayna jirin kuna soo dhaweeyay isla markaana gurigooda. Haddana waxa ay sheegayaan una cuskanayaan xujooyin aan loo baahnayn iyagoo leh dastuuri ma ahayn iyo waxaas hadalla aan loo baahnayn runtii. Laga yaabaa mararka qaar inuu sharcigu ku dulmiyo sababtoo ah ma jiro caddayn aan ku caddayn Tiffany. Xagga Michael iyo la leeyahay Alan iyagana way u bannaan tahay in fadhi kale la siiyo lagana yaabaa in la soo daayo sanadada soo socda. Laakiin waxaa isweydiin mudan maxa ay tahay lamaanayaashan masaakiinta ah dembiga ay galabsadeen loo dhaafiyeyna noloshoodii marka uu cimrigu kulmiyey iyagoo jira 61 sano kala maqnaana muddo 20 sano ku dhow. Muuqaalkeena maantana intaas ayuu ahaa. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa peace.